عليكم ونمعة محمد خليف وقبل لحد عيال لقى قاطي والعيال وحي إسلامه وشهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله نهاي والعيال وقرب استاغ علمي وأيدي عينهن أقونتها قعنت يدين ولا قصارة قعنت كلا إيقالين قرية لقو كلا قبي يميلا مناسبة هنا يتشوغان قبلها كميدا وحي بوقرين والي إني والانتهاي isbitaal laba way ku hayaan ilaa hadda waxay ku sugantahay waxay ku direen wax war ka hayo ama soo arka midna malaha isbitaal ay ku jirtaa ina arka leeyma ogola community-gi dadka inay arkaan uma ogola mid kamid ah halkan meel ay ku dayacantahay halkaas iyadoo qabowga ay raydkaas lugaysa cayaalkii laba kamid ah waxa way madaxii baa googay wal ilmo madaxa loo dhaqo gacanta lagu haayeen labadii wiil oo yar ka ahaa ay baa leefleef sida cunug yarka lix jirka ay sheegay ay baa leefleefo oo baadar gareeyo islaam markaa dhahooyo waa islaanta ugu sheegweeda ku haystaa warti gaalada aynu waxay u dhaha hooyo it's okay she's baby ayga baby waa she's okay dhib kuma geysana cunug wuxuu dhahooyo sasaan qaade hooyo ayaa nafta ii keenay cidiga cilinaysa male aniga awood malihi aan dhaho ayga iiga daa ilmaha cid inoor garaynaysa cid hadalkayga hoos qaadaysa male soomaaliya maanta meeshaan taagana anaga isdhignay soomaaliya gacmaha isqabsano meeshaan maanta taagana anaga isdhignay ilmihii agoonta waa ay dayacan yihiin daryeel ma haystaan aniga bisha waxay dhaheen labadeeda la qabanayaa wax la dhaho maxkamadda maxaa lagu gaaro kasakay maxay tahay ayro gubina dayacan yihiin dhibaataa jirto waa iga seexateen ii istaaga intii shahaadato oo dhahda laa ilaaha illallah maxamed rasuulullah ilmaha yararka agoonta qofkii wax ku sadaqaysta ama qofkii wax geysto ajar buu helaya aabood waa nin dhintay maantay waxa waaye nin dhulka ka hooseeya waa nin aan mar dambe dhalaynin fir iyo magac buu ka haray fir iyo magac ilmahan ka jooga nin bay magaciisa ka joogaan walayaal oo istaaga adinkoo qabyaalad u fiirinayn adinkoo u fiirin reer hebel ilmaha Soomaalinimada ugu istaaga shalay saad u garb istaagtay maanta u garb istaaga saddex kamid oo yar arka saddexda marka arka waxa waaye laba kamid waa labada wiil oo yar ay gabadhii baa mar lay tusaa hal saac waqti laba week dhan laba maalmood mar layga tusaa hal saac markaan ka hadlo dhahoyo ay baa leef hooyo ay baa dhibaatay cid hadalkeena naga hoos qaadaysa mala cunug yarka cidagaysanaysa malaha meesha waxa waaye cadaalad darra ka jirto Soomaaliya waa u badantiin maanta gobolka Minnesota waa u badantiin ilmahaas Minnesota meel kamid ay joogaan intii dacalada America joogto waa meesheeda inta joogta loo gurmay loo soo saa kii loo yaraha kii aqoon-yahanaha kii macquul ah ilmahaas sababta waxay ku nooliyeen dhaqankooda soo ogaan lahaa waa muhiim qofkii aqoon-yahan oo loo baahan yahay qofkii duceynayeen oo loo baahan yahay walayaal u garb istaag ilmahaas waa agoon aabood mar dambe ma dhalaayo aabood nin dhalaayo dambe soo noqonayo waa nin maanta qabri ku jiro maanta duu noolaan wax dhanay ahaan lahayd waa bilaa aabo hooyo kaligeeda korsanaysa loo dhacdhacis waa 6 ciyaal waa 4 gabdhood 2 wiil maanta haday ilmahaas baxaan oo dhul gaalo u galaan waxa way waa xibin islaamka ka baxday walayaal oo islaamnimada la isku garab istaaga qabyaaladii qabiilka inta la iska daayay la isku garab istaaga Soomaalinimo hal isku garab istaaga kelmadda laa ilaaha illallah maxamed rasuulullah naga dhaxaysa islaamka dhan ka dhaxaysa hal isku garab istaaga maanta guri madow baan fadhiya sariirahoodii iyo gurigooda waa ka guriga kaliya maanta dhex taagan oo ka dhaxalay caaw labadaas sariirood iyo xoolashaan ayaga laha maanta guri madow baa la taagan kuwa xoolashooda maran fadhigoodii waa kan fadhigaan adduunyada dhalo maanta guri ilmo dhaqan bay ahaayeen firiisyadaas firiisanka dhulka u yaalo talaaga daaweyn u taal oo halkaas riyaasha iyo alaabta iyo adduunyada dhan u taal qofkii arka gurigaan buuxay maanta ku jireen ilmahan guri la'aan ma haynin dayacay dhibaato heshay sariirahan iyo adduunkan laba saarka adduunyadana ku hooyan jireen maanta waa guri maran oo madow aan dhex fadhiyaa ilaa inuu guri madow ina tagin oo maanta waxa ninkii loo xiro khayrka ana soo qoysaa la dhahay marka dhibaatada maanta ani hayso wax Ilaahay igu tala galay ma sabirkayga waxa lagu fiirinayaa iyo sidaan ahay baa Ilaahay ku fiirinay walayaal Ilaahay idinkan inaga badbaado awlaadina alla inii badbaadiyo anigana garab istaag Ilaahay dartiis kelmadda laa ilaaha illa maxamed rasuulullah istaag aabood mar daba ma dhalay waa agoon qofkii maanta agoon wax ku sadaqaysta waxa waaye wax kasta Ilaahay u fududeynaya aakhiri adduunba walayaal garab istaag guriga madow baa dhex taagana maanta